waa barnaamijkii falanqaynta koobka kubadda colaadda oo aad isbuuciiba mar kala socotaan YouTube channelka Daadir Dalmar. saaxiibadayda sharafta iyo qiimaha badan lahow YouTube Daadir Dalmar account waa kini waa keygii waa koodii waa kaagii waa kihiga iyo laabta aad ku hayseen waa kii aad ka helayseen macluumaad aad u xiiso badan. waxaan filayaa in aad subscribe garanaysaan mar walba iyo goor kasta oo aad daawataan. saaxiibayaal, subscribe, like and subscribe, always subscribe. kulanti wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta kubadda colaadda oo aan idin soo gudbin doono aniga oo ah Daadir Dalmar. sida aanu horey idinkugu soo tabinay, waxaa 8 January dhacay lugtii hore ee kulanka kubadda colaadda kaasoo ka dhacay Stadium Tukaraq. kulankaasi waxaa ku badiyay gool iyo eber naadiga ama kooxda Somaliland. Puntland ayaa waxa ay tiri kulanka waxaan la igaga badiyay diyaar garow la'aan, balse haatan ayay u muuqataa mid ku jirta dadaal fara badan iyo caalamiito iyo tababar aan inaba la soo koobi karin. sidoo kale naadiga badiyay lugta hore ayaa sidaasi si la-eg isagu laftiisa waxa uu ku jiraa tababar fara badan, balse naadiga Somaliland managerkooda ayaa waxa uu yiri lugta labaad Tukaraq Stadium kuma wada ciyaari doono ee waxaanu ku ciyaari doonaa stadiumka loo yaqaano Yoocada. halka ay Puntland tiri lugta labaad ama finalka ciyaarta waxay ka dhici doontaa oo ama aan ku gudoomi doonaa koobka kubadda colaadda meesha loo yaqaano Labi Qaatumo ama afaafka hore ee Labi Qaatumo. haddaba iyagoo inta badan ay warbaahintu hadal hayso koobkan aadka u adag ee dhex maraya labada naadi ee Puntland iyo Somaliland, koobkaasoo aad la wada socotaan koobka loo yaqaano koobka kubadda colaadda, ayaa haddana waxaa had iyo goor hawada la isku marinayaa hanjabaad aad u fara badan, balse waxaa la filayay in uu dhaco dhammaadka January ama bilowga February. labadaba ma uusan dhicin. haddii uu kulankani dhaco ayaa waxa ay noqon doontaa mid ku dhaca si kadis ah ama lama filaan, inkastoo ay bulshadu ama inta xiisaysa